السلام عليكم وولالكن عبد المجيد maanta mawduuceenan waxaanu kaga hadli doonaa farqiga u dhexeeya labada wadan Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi. Inta aynaan mawduuca u gudagelin waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe-ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin. ku soo dhawow. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. ugu horreyntii aan ka horreysay hordhac yar labadan wadan ee Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi waxay ahaayeen laba dal oo isku mid ah waxaana gumaysan jiray wadanka Japan laga bilaabo sanadkii 1910 ilaa 1945 waqtigaas oo wadanka Japan lagu jabiyay dagaalweynihii labaad ee adduunka markaas oo ay labadan wadan ka fara baxeen gumaysigii dalka Japan. intaa kadib waxa ka dhaxlay dagaalo lagu hoobtay sababtaas oo keentay inay labadan dal mid walba ay gooni u istaagto. tirakoobka dalkan ama dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi waxa lagu qiyaasaa in ay yihiin 26 milyan oo qof. tirada dalka ku nool Kuuriyada Koonfureedna waxa lagu qiyaasaa in ay yihiin 50 milyan oo qof. dhanka dhererka Kuuriyada Waqooyi way ka gaaban yihiin ama dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi way ka gaagaaban yihiin dadka ku nool Kuuriyada Koonfureed sababtuna ay tahay cuntada ay cunaan oo ka yar ama aanay ku fillaynba dadkaas awgeed. muuqaalka ku jira YouTube-ka ugu daawashada badani waa hees uu qaaday nin ka soo jeeda dalka Kuuriyada Koonfureed oo la oran jiray PSY. waxaa ka mamnuuca dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi in ay xidhaan dharka loo yaqaan jeemiska. shantii dumar ee ku nool Kuuriyada Koonfureedba mid ka mid ah ayaa waxay martay qalliin dhanka jidhka ah. dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi waxaa ka mamnuuca inay u safraan dalka dibaddiisa ilaa dad khaas ah oo ay dawladdu ogtahay mooyee. Kuuriyada Koonfureed waxa ay ku jirtaa kaalinta 12aad ee dhaqaalaha adduunka. dhanka dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi waa shuuci ama hanti wadaag sababtaas oo ka dhigan in aanay jirin qof taajir ahi. Kuuriyada Koonfureed waxay aaminsan yihiin in marwaxadda haddii ay ka dul baxayso oo aad seexato inaad dhimanayso. dhanka tima xirashada ama tima jarista waxaa lagu qiyaasaa Kuuriyada Waqooyi in loo xirto ama loo jarto timaha 28 style ama 28 tima xirasho kaliya. Kuuriyada Koonfureed waa wadanka ugu badan ee lagu qabto xafladaha ugu badan ee adduunka. Kuuriyada Waqooyi waxa shantii sanaba marka dhaca doorasho haddana waxa isweydiin mudan maxaa ku soo celceliyay qof kaliya in xukunka qabto laakiin sababtu waxa weeyaan musharaxa waaba madaxweynaha Kim Jong oo kaliya cid kale lama tartanto. muusikada haddii aad eegto dhanka muusikada ee Kuuriyada Koonfureed waa tiro aad u badan oo aan la soo koobi karin qof kastaana waa uu heesi karaa si uu doonana uu heesi karaa.